إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون dhammaan waxaan halkan tacsiid tiiraanyale hawada u marsiinayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehladii iyo daalibulcilmigii uu ka geeriyooday ilaahay ha u naxariisto Xaaji Daawud Sheekh Cilmi Cariif oo ahaa shakhsi samafala ah bulshada Soomaaliyeedna qiimo weyn ugu fadhiyay muddo badanna ka shaqeynayay diinta islaamka horumarinteeda oo ku tababarkii mawlacyo u sameeyay dad xer ah oo wax ku bari jiray sida la xusuusan yahay 700 iyo wax ka badan ayaa geeridiisii dadka uu ka geeriyooday oo uu wax barayay ilaahay dartii wax u barayay ayaa tiradooda lagu sheegay waxaan aad iyo aad tacsiid tiiraanyal ugu dirayaa dhammaan dadkaas iyo ehladiisii waxaan ilaahay u weydiisanayaa asagana jannadii firdowsa ilaahay inuu ku amaal mariyo marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo wuxuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Martiini maalintii Axadii waxaan aad iyo aad aan ilaahay uga baryayaa dadkii uu ka tagay iyo khadmadiisii in ilaahay ka soo saaro dad oo sidii uu diinta ugu khidmeeyo oo samafalka halkaasii wada maadaama wixii uu ku khidmeynayay uu adduunka uga tagay intaasna ilaahay baan uga baryayaa waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ilaahay in uu gurmad degdeg u soo diro oo dadkii uu dhintay ee corona ku dhintayna ilaahay u naxariisto naxariistii janno ilaahay uu ka waraabiyo ilaahayna uu siiyo nabadgeliyo waxaan baa u dirayaa oo munaasabadan uga faa'iideysanayaa dhammaan dadka oo saamiriida siyaasadeed loo baxshay waxaan leeyahay qof walba waxa uu raadinayo ilaahay baa haysta ilaahay ha weydiisto si sharciya iyo si islaamnimo ku weydiisto yaan ummadda dhiigeeda lagu raadinin ummadii Soomaaliyeed oo maanta la ildaran xanuunka faafaha daran oo kuwii oo dalagyada beertana uu ayax ka cunay abaaru hayso oo roobkiisa guga uu yaraa intaas oo dhan isku hayso in ay kursi kaliya ay u jeedaan oo isku dagaalaan aad baan uga xunnahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dadku waa shacabku waa xogogaal ilaahay waxaan weydiisanaynaa madaxdayada iyo siyaasiyiinteeda kuwii waxyay iyo kuwa hadda wax doonayaba ilaahay inuu qalbigooda isku soo dumo culimada islaamka iyo dadka ahlu fadligana waxaan ka codsanaynaa ilaahay inay baryaan oo ay u duceeyaan wadanka dadkiisu inuu isfahmo dad aan isfahmin ducadoodu aqbal noqon mayso waxtarkooduna israaci maayo intaasna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinteeda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba tacsiid tiiraanyal u dirayaa ehladii iyo ummadda islaamka iyo daalibulcilmigii uu ka geeriyooday Xaaji Daawud Sheekh Cilmi Cariif oo ahaa samafale aad iyo aad qaali ugu ah oo aan isleenahay siyaasiyiinteeda Soomaaliyeed iyo dawladuba dadka la qaraabta ayay u tacsiyeeyaan laakiin dadka nuxurka ummadda haya sida Xaaji Daawud oo kale waxaad moodaa inaysan aad u aqoonin ummadda Soomaaliyeed oo dhan war uga tacsiyeynaa maadaama uu nin samafala ahaa ilaahay waxaan leenahay ilaahay waxaan ka codsanaynaa ilaahay inuu u naxariisto jannadii firdowsa uu ka waraabiyo ummadii uu ka tagay iyo khaadumiintiisina ilaahay uu ka soo saaro sidiisii oo kale dad samafalayaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.